ma tahay dadka faraha xubnaha madmadow sida markay cilaanka marsadaan madmadowga uu ku reebo dadka shaqada badan ee faraha ka madoobaadaan haddaba waxa ku haya halka iskaga baabi'in lahayd halkan waxaan ku diyaarsaday alaabta aniga cilaankaas aan iskaga fujin lahaa haddana waxaan haystay in idinkana idin soo geliyo idin faa'iideeyo maadaama adinkana iska bi'in kartaan farahaaga haddii dadka faraha madow tahay xilliga kareenka ee marsadaan oo kale meelaha madmadowga ugu reebo faraha bas ma aan hanqawiyada suxullada jilbaha sidoo kale dadka meelahaas uma madow aad tahay ama xilliyada salaada xitaa dadka hanqawiyaha meelaha la dhigta camal kama madow aad tahay alaabtana iska marinay way kaa baaba'ayaan ayaga dhan haddaba alaabtan tayada badan wixii aan ka sameeyay hadda isla gudagalaynaa halkan waxaan kusoo shubtay colgate qof walba uu yaqaanaa waa midda ilkaha lagu cadaysta daawada ilkaha lagu cadeeyo daawadaas shaqaday qabato waa wada taqaanaan oo ilkahay cadeysaa maasha allah way nadiifisaa sidoo kale maanta waxaan u isticmaalinaa inaan xubnaha madmadow kusoo nadiifino sida farahaas cilaanka leh maxaa la dhihi jiray aan kusoo nadiifino waxa kale kusoo darsanaya waa baking powder qof walba uu yaqaanaa guri walbana wuu yaalaa oo waxaa lagu darsadaa raashinka burkaan u isticmaalnaa asagana waan kusoo darsaday qaada nuskeed ayaan kusoo darsaday alaabtan lagama sheekeyn karo inaba caadi ma ahan haddii sida aan aniga sameynayo u sameeyo sida u qasato oo haddii gacantaada iyo meelaha kaa madow dhan aa marisid lagama sheekeyn doono adiga iyo madow waa isteeni doontaan allah mustacaan waxaa sameynaysaa horta dhammaantiin soo dhawaada channelka noo subscribe gareeya haddaan ugu cusub tahay haddii aan hore noola joogtay aad iyo aad u mahadsantahay asxaabteyda qaaliga waxaa kaloo kusoo darsanaya sokorta ayadana waa taqaanaan sokorta jirka waxay ka saartaa madmadowga iyo wasakhda waxaasay ka saartaa la dagaalantaa wax walba isku qurxinayso waa inaad ku darsatid sokorta maadaama nadiifinta loo isticmaalo waxaa kaloo u baahantao muhiim ah inaad haysatid liin dhanaan noocaas saas camal u jilcano hadii biyo badan micnaha muhiimad waa inay biyo badan leedahay biyaha liintaan rabnaa marka liintaas waa inay haysatid hadda hal gabalaan isticmaalayo oo aad u biyo badan waan isku soo qasayaa si fiican aan isku soo dhexgelinaya isku soo mix gareynaya marka si fiican haddii u soo qaso isku soo dhexgeliyo wixii aan ku darsan doono iyo sidaan u isticmaali doono inta daqiiqa korka ku hayni doono waa isla arki doonaa iyadana lagama sheekeyn karo waxaa waaye waa wax la hubo oo haddii hadda aad samaysid natiijadeeda aad arki karto berri oo kale ana hadda cilaankaas u jeedaan iska marin rabaa caawo berrito sidan ma ahaan doono sidaan muuqaalkayga markaan soo gelinayo ma ahaanayo sidaan cilaankayga uu asagoo ka bedelan ama sii dhammaanayo wax yar u dhimanyihiin arki doontiin waana wax la hubo wax ma ahan hadda qarash badan kaaga baxaayo sidoo kale ma ahan wax oo chemical ama wax kuu dhimaayo wax aadan aqoonin maahan waa wax aad taqaano oo gurigaaga aad ka heli karto dhammaantood waxa dheeriga aan ku darsanaa waa jeelkaasaan isticmaalayaa jeelkan wuxuu u dhigmaa waa dacaarta aloe vera la dhahaa midda wejiga lagu xiiro iyo waxaas waa taqaana sooma ayadane ama waxa ku darsataan waad ku darsan kartaa haddaa haysatid haddaad haysanin muhiim ma ahan ha ku darsanin haddaa haysanin muhiim ma ahan haddii aad haysatid waa iskaga darsan kartaa waa iska caadi laakiin muhiim ma ahan inta muhiimka waa intaas hadda meeshaan kusoo shubay hadda waa qaseynaa si fiican aan isku dhexgelinaa ujeedaan qaadada iyo weelkii baan isla qabsaday haddii waxaan rabaa inaan si fiican usoo sugan si fiican isku soo dhexgeliyo alaabtaan lagama sheekeyn karaa hadda si fiican aan iskugu soo qasayaa kaamirada aan kugu soo dhaweynaa horta alaabteyda sidii kusoo baxday waa ujeedaan si markaan qasay waxaa waaye sidaas quruxda badan ee noogu soo baxday asxaabteyda sharafta leh waa ujeedaan quruxay noqotay ayadan smooth ay noqotay war adiga iyo xubno madmadow iyo fara madmadow waad isteen doontaan baa ku yiri alaabtan haddii aad isla dhacdo oo waxaan ku iri 3 bariyo joogta aad isticmaasho farahaaga waa laga yaabi doonaa dad waxaa jira xitaa igoon kareen marsanin ilaa u dhaliyay farahaas iska madow yihiin dad waxaa jira shaqo badan oo macnaha dadka shaqada badan wax badan qabanayaan ama alaabta dhaqo ama wax xalay aad qabto faraha sidoo kale way u madow yihiin marka alaabtan ayaa maxaa la jira haddaba aad oo ku qabtireyso oo wax chemical ahayn wax aad garanayso dabiici gurigaada ku yaala yihiin wax aad weynaynin waxaan dhan ma weynaysid gurigaaga yaalaan soo maahan marka si dabiici madowga iskaga jira anigana waa isoo duceyn doontiin markii maxaa la jira alaabtan haddii ay idin anfacdo madmadowga iska jartaan maasha allah tabaaraka raxmaan lagama sheekeyn karo alaabta waa kuwa haddana waxaan guda gelaynaa isticmaalkeeda inaan isticmaalo oon soo marsado ayaan bilaabayaa waana arkaysiin step by step sidaan u marsanayo inta daqiiqa aan ku haynayo maxaa la dhihi jiray kadib sidaa iskaga dhaqaayo wax dhan waa arki doontaan idinkana wadadaas aa la rabaa inaa raacdaan maxaa la dhihi jiray sidaas oo kale ay iskaga dhimaysaan madmadowga ana hadda cilaankii halay ugu reebay ayaa la dagaalamay rabaa beritan natiijadeeda muuqaalka xiga ayaad ka arki doontaan hadduu aabaha awoodda la idmo soo dhawaada dhammaantiin
soo message gareeyo kadib iskama dhaafaysid inta ku message gareyso iskama dhaafaysid ama iskama dhaqaysid waxa sameynaysaa haddana waa qaadada soo qaadanaysaa waad ku shubaysaa waad ku soo message gareysay marka hore si fiican u soo dhaxgelisay Soomaaliya intaan ku shubin horta waxa sameynaysaa liinti gobolka ka soo haray ee ewerka ahaa ayaa soo qaadaysa waad kula xuqaysaa si fiican baad u marinaysaa si fiican oo wala xuqaysaa waa korka weyn nadiifisaa way bishaa idin macallin ah saasaa la rabaa inaad korka liinta ugu xoqdid carrada dhan waxaan ku yiri clean gacanta si nadiif sida u noqon doonto hadii lagama shakeyn doono oo u jeedaan haddana waan soo dhaqayaa markaan soo dhaqo iyo sidii ku soo baxda isla arkeenaa waa intaad soo dhaqin ka hor waa qaada soo qaaday waa ku shubay waa ku heynay 5 daqiiqo maadaama hadda anaan diiday muuqaalka inuu ugu dheeraado sidaas uu sugaayay waka hadda gacanteeda waan soo dhaqay sidaas quruxda badan insha Allah soo baxday oo lagama sheekan karo waa ujeedada quruxdeeda laakiin uu si baaba ayaa u jeedaan wadkiisa galay uu si dhamaanay isaga lagama sheekan karo fariigo kuwaas ahmed madow qurxinaadan inaad alaabta raxmaan jirto inkan waxaan rajeynayaa inay nafci doonto si fiican u tijaabin doontaan walaalahayga aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhawaada muuqaalka inta soo gaartay noo like gareyn noo share gareyn aad iyo aad u mahadsantihiin